gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Muradije Abdirahmaan Maxamed Jaamac ayaa fariin wacyigelin u diray dhammaan bulshada ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ee gobolka Muradije isaga oo sheegay in ay dhammaanba diiwaangelinta odayaasha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka bilaabmayso in ay gobolka Muradije si mug leh isugu diiwaangeliyaan diiwaangelintaasi oo wax badan ka taraysa dadkii yaryar ee waqtigii hore aan nasiib u siinin iyo dadkan imika waqtigan qaan gaaray iyo kuwii kaarku ay kolobeen taba waxaana hadaladiisa kamid ahaa sida aynu isla ognahay ama komishanka doorashooyinka qaranku ay noo baahiyeen dadka isdiiwaangelinaya waxay noqonayaan dhowr qaybood waa dadkii qaan gaaray muddadii ka soo dambeysay 2021 iyo dadkii aan hore isu diiwaangelin sababtay doontaba ha uga maqnaadaan tii hore 2021 isdiiwaangelin iyo dadkii uu ka lumay kaarku oo imiga Janice ay u haystaan inay dib u qaataan iyo dadkii waraaqaha qaatay dabadeedna kaarka qaadan oo maanta Janice loo siiyay in ayaguna dib isu diiwaangeliyaan waxa kale oo iyaguna ku jira dadkii intay isdiiwaangeliyeen doorashooyin diiwaangelinii hore kaararkoodii aan qaadan ee uu ka noqday ee komishanka doorashooyinka lagu xareeyay maanta waxay noqonayaan dad cusub oo waxa ku waajibay inay dib isu diiwaangeliyaan sidaa daraadeed waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba ku wacyigelinaa dadweynahaas inay si mug leh oo iyo miisaan leh ay uga qayb qaataan diiwaangelinta bilaabmaysa 28 December insha Allah muddada ay komishanka doorashooyinku inoo shaaciyeen waa muddo dheer bay soconaysaa xagga kalena waxay ka soconaysaa goobo cayman oo yar inagoo goobaha cayman ee komishanka doorashooyinku inoo asteeyay ka faa'iideysanayna waxaan ku boorinayaa dadweynaha ku dhaqan gobolkan Muradije inay si mug leh uga faa'iideystaan oo isku diiwaangeliyaan goboladuna waa tartamayaan waxaan leenahay gobolkan Muradije tartanka weligiiba diiwaangelinta isaga hogaamin jiray doorashooyinkana isaga hogaamin jiray markay doorashada noqotana mar walba wuxuu noqon jiray boqolkiiba 50 dadka codeeya dalka guud ahaan waa Axmed Maxamed Cawaale warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa